waxaan ugu horeyn idinku soo dhaweynayaa shirkan maanta aan ugu talagalnay shirka wada tashiga wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqul insaanka oo heer federaal ah iyo heer dowlad goboleedba runtii barnaamijkan sidaad la socotaanba wuxuu salka ku hayaa mashruuca wada jirka ah ee xuquuqda aadanaha oo sanadkii lasoo dhaafay dhexdiisa aanu ka hirgelinay wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqul insaanka mashruucaas oo ujeedka ugu weyn uu yahay sidii aan u xaqiijin lahayn iyo sidaan u ilaalin lahayn muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa markaan leeyahay waa xuquuqdiisa kala duwan oo dabcan taabanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed marka ha noqoto heer federaal iyo heer maamul goboleedba marka dabcan marka hadafka noocaas oo kale fog la leeyahay waxaa muhiim ah in aan gacmaha isqabsano in aan maaragtay wada tashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo waxaa muhiim ah inaan booqashada si joogto ah aanu isweydaarsano waxaa muhiim ah inaan xogaha runtii aan iyaduna aanu wadaagno marka haddaad ii ogolaataan waxaan jeclaan lahaa inaan idin taabto ama idin dulmar guud waxyaabaha inoo suurtoobay hadda labadii sano ay xukuumaddani ay dalka hoggaanka u haysay nabad iyo nolol waxyaabihii inoo suurtagalay waxyaabaha ugu weyn oo ugu muhiimsan waxaa weeye in aanu ku guuleysanay runtii barnaamijka xuquuqda dadka baahida gaarka leh markaan ka hadlayo waa baahida gaarka noocay doonto ha noqoto ama ha noqoto mid maskaxiyana ama ha noqoto mid aragga ah ama ha noqoto mid maqalka ah ama ha noqoto mid socodka ah macnaha isku wadageen dhammaantoodba waxaanu ku guuleysanay in la sameeyo hay-addii ugu horeysay ee qaran oo Soomaaliya ka hana qaada burburkii intuu dhacay sharcigaas golaha wasiirada waa ansixiyey baarlamaankana waa ansixiyey runtuna falilah alxamd madaxweynuhuna waa saxiixay saasuuna sharci uu ku noqday marka iminka waxaan gacanta ku haynaa diyaarinta hay-addaas markii la sameeyey kadib hadda waxaan gacanta ku haynaa diyaarinta shuruucda ee hay-addaasi yeelan lahayd dabcan mar dhow waxaa noo bilaami doona inaan wada tashi aan maamul goboleedyada aan u nimaadno inaan la tashano maamul goboleedyada ururada bulshada dowladda mataqaana culimada diinka muxuu ah ardayda iyo dadka kale oo mataqaana sida gaarka ah ay mawduucan ay u saameynayso talabaad oo aan ku guuleysanay falilah alxamd waxa weeye shirkii qaran haweenka Soomaaliyeed ay isku yimaadeen wada tashiga qaran oo bishii saddexaad ee sanadkan xamar ka dhacay oo muddo 3 maalmood inoo socday shirkan waxaa ka soo qayb galay ku dhawaad 350 ergo oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa falilah alxamd waxaan ku guuleysanay oo shirka ka soo baxay axdi qarameed haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin taas oo runtii taabanaysay baahiyaha haweenka Soomaaliyeed noocay doonto ha noqoto iyo sidii ay mataqaanaa bulshada Soomaaliyeed kaalintooda kaga aadan ay mataqaanaa ay u qaadan lahaayeen ha noqoto siyaasiyan ha noqoto dhaqaale ahaan ha noqoto muxuu ahaa bulsho ahaan iyo wax kastaba ama heer kastaba oo bulshada Soomaaliyeed ay xuquuqda kaga leeyihiin haweenka Soomaaliyeed inay helaan ayuu hadafkii ugu weynaa oo shirkaasi ka soo baxay hadda waxaan gacanta ku haynaa in aan sameyno qorshe hawleed
aanu ku fulinayno go'aamadii ka soo baxay shirkaas dabcan fulinta hawshaas laidinkama maarmo dowlad goboleedyada lagama maarmo inay aanu arrintaasi aan gacmaha iska qabsano oo sidaan ku fulin lahayn aanu sameyno idinkoo og in mar dhow insha allahu tacaala arrimaha siyaasadda ay nagu soo fod leedahay 2020 insha allahu tacaala aan isleenahay haweenkeena soomaaliyeed meesha ay maanta taagan yihiin muxuu ahaa meel kasii wanaagsan oo kasii xoog badan oo kasii sarreysa insha allahu inaan dhammaanteenba aan wada gaaro waxaan kaloo aanu ku guuleysanay in burburkii kadib Soomaaliya ay gudbiso warbixinta caalamiga ah ee xiliyeysan waxa la afqala loo yiraahdo universal periodic review warbixintaasi xiliyeysan waxa weeye warbixin 4 sanaba hal mar la iska doonayo in la fuliyo oo looga hadlayo xuquuqda aadanaha dalka halkay maraysaa marxaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya waa maxay dabcan waajibaad baa dowladda Soomaaliya saaran inay warbixin joogto ah caalamka iyo hay'adaha ay ka mid tahay ay u gudbiso halkay marxaladdu say tahay maxaa inoo qabsoomay maxaan hiigsanaynaa inaan qabsano waqtiga dhow iyo waqtiga dhexe iyo waqtiga fogba maxaa u baahan in la saxo taasna waa ku guuleysanay fallaahi alxamd waxaa kaloo aan sidaa la socotaan Soomaaliya ansixisay axdiga caalamiga ee xuquuqda carruurta runtii 2015 baan xubin ka noqonay muxuu ahaa axdigaas oo soo baxay 1989kii marka waxaa la iska rabaa axdiga markaad ansixiso aad xubin ka noqoto inaad warbixin aad ka soo diyaariso xaaladda carruurta dalkaas ay ku nool yihiin warbixintaas diyaarinteeda hadda gacantaan ku hayna waa gabagabo waxaana iska kaashanaynaa daneeyayaashoo dhanba Soomaaliya dabcan dadka ugu xoog badan oo aan wada tashiga la sameynayno oo aan horena oo la sameynay waxa weeye dowlad goboleedyada Soomaaliya ururada bulshada muxuu ahaa deegaanada ku nool iyo heer federaalba iyo saaxiibadan caalamiga ah oo aan runtii ayaguba aad iyo aad xagga farsamada naga caawiyo dabcan markaad axdiga aad saxiixdo waxaa waajib kugu noqonaya in aad soo diyaariso waxa la yiraahdo sharciga xuquuqda carruurta fallaahi alxamd waqtigan xaadirka ah hadda waxaan gacanta ku haynaa diyaarinta sharcigaas waxa la yiraahdo child rights bill baan hadda aan gacanta ku haynaa iyadoo aan khubaro Soomaali ah iyo kuwa caalami ah labaduba aanu la kaashanay sharcigaas oo isleenahay wuxuu noqonayaa sharci taabanaya xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed uu leeyahay sidii xuquuqdiisa u heli lahaa sidii aan mataqaana u ilaalin lahayn iyadoo waajibaadka halkaa sharcigaas uu caddeyn doono uu noqon doono mid saameyn ku yeesha mustaqbalka ubadkeena insha Allah kaasna gacantaan ku haynaa idinkana dowlad goboleedyada martida inoo ahna lagama maarmo in arrintan laidinkala tashto idinkuna aad runtii aad wax nagala qabataan waxaan kaloo aan isleeyahay inoo meel maray inay Soomaaliya xubin ka noqoto UN Human Rights Council يعني guddiga caalamiga ay qaramada midoobay leedahay xuquuqda aadanaha taas oo guul weyn runtii ummadda Soomaaliyeed u ah marka haddaan intaa ku soo koobo wax qabadkii iyo waxyaabihii inoo qabsoomay labadii sano aan mataqaana la soo dhaafay waxaan rabaa maanta shirkeenna in aan runtii si aad ku aragtaanba ajendaha howlo badan ayaa inoo qorshaysan warbixino badan ayaa halkan laga soo jeedin doonaa waxaan isleenahay insha Allah tacaala in ay shirkeen uu noqdo mid furan inuu noqdo
oo mid ma taqaanaa si mugle aanu dhammaanteenba aanu uga qayb qaadano warbixinadan aan dhegaysano warbixinada waxyaabaha u baahan in laga bedelo waxyaabaha u baahan ma taqaanaa in wada tashi dheeraada la geliyo arrimahaas oo dhan ba inaan maanta isla lafagurnaan doonaya insha allahu tacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku soo dhaweynayaa shirka insha allahu tacaala shirkuna waa inoo furan yahay